halkan waa taliska booliiska ee dowlad goboleedka Jubbaland halkan waxaad ugu jeedaan xashiish aad u tiro badan oo ka yimid dhinaca Muqdisho oo la doonayay in la soo galiyo magaalada taasoo la doonayay in lagu haleeyo dhalinyarada iyo ciyaalka iskuulada ee magaalada wax ka baranaya iyo amniga magaalada in lagu khalkhal galiyo la rabay waa 28 kiilo oo xashiish ah waxa Ilaahay shalay u suurta galiyo inay gacanta ku soo dhigaan ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland hadda gacantan ku haynaa sidaad arkaysaan gaarigan ayaa lagu soo qaaday lagu doonayay in magaalada lagu soo galiyo xashiishka ninkii wadayna waa kan oo ninkan oo darawal ka ah gaariga ayaa wada xashiishka waa 28 gaarigii iyo ninkii waday iyo asagiiba waan isku haynaa halkii uu ku socday iyo meeshii lagu wadayna ayadana waan haylnay ayadana waxaan ku haynaa dabagal baan ugu jirnaa in aan gacanta ku soo dhigno maalin walba waxaan soo qabanaa intan iyo in ka badan oo yaalo ma garanaysaa intan waa intii shalay la soo qabtay ciidanka booliiska uu gacanta ku soo dhigay marka waxaan iyo wax badan oo la mid ah oo faldambiyada oo laga keeno magaalada banaankeeda magaalada sida u soo galo oo waxa jira ay ciidanka booliiska ay gacanta ku soo dhigaan oo la soo qabto kuwa kale haynana waan soo bandhigaynaa sidan iyo sidan lamid haduu Ilaahay yiraahdo waxaan doonayaa ninkaasi inaan ku maxkamadeyno oon sharciga ku horgeyno alaabtaas uu doonayay in uu amniga ku qalqal galiyo ee uu soo galiyay magaalada uu doonayay inuu macnaha ma garanaysaa in soo galiyo waad arkaysaan indhihiina macalina gaarigi lagu keenay iyo cidii meeshan macnaha ma garatay keenaysay waxaan information ka helnay markuu xamar ka soo baxay xashiishkan intani waan sugeynay waxa uu soo dhaxmaray shabaab aanu maleynayna ayaga naftirkooda inay canshuur ka soo qaadeen oo ay soo fasaxeen